sanayda heestii ahayd in jaceylku halis yahay jacaylku halis yahay qiirtaanya kulul yahay hawliyo dhib leeyahay jacaylku halis yahay qiirtaanya waa tahay qaybtii hore waxay noo marayday teel ayaa la kala qortay marka sheekada halkaasi maraydo ayaa baski yimid kadib baski ayaa la raacay si toos ahna waa loo aaday iskuulka qof waliba galaaskiisa ayuu galay balse Cabdiraxmaan wuxuu sugi laayay waqtiga bareega asagoo dhararaya aragtida Zainab wuxuu waqtiga ku dheeraadaba waa la gaaray balse nasiib xumo Zainab maysan soo bixin taasina waxaa dhibaato u arkay Cabdiraxmaan daqiiqadaha ay Zainab fasalka ku sii daahday ayuu xamili waayay markaasi ayuu fasalkii ku booqday Zainab asagoo raadinaya aragtida Zainab waa uu arkay wuuna ku farxay waxa uu la yaabay sida gabadhan casharada ugu dadaaleydo markaas ayuu ku yiri hi Zainab ayadoo aan kor u soo eegin bay ugu jawaabtay hi to markaas uu ku yiri Zainab abayo maxay tahay asmada miyaadan kor isoo eegi karin wuxuu ugu jawaabtay ha abowe waan ku soo eegi karaa balse daruuri uma arko cashar ayaan akhrisanayaa waa uu ka xumaaday markaas uu ku yiri way he miyaadan banaanka soo baxaynin waxay ku tiri maya abowe wax baa xalisanayaa waa uu la yaabay waa uuna ka tagay isla mar ahaantiiba Zainab hooyadeed oo lagu magacaabo Zara ayaa taleefan soo tirtay Zainab waxayna u sheegtay in aabaheed uu xanuunsaday isbitaalna loola cararay Zainab way naxday indhaheeda ilmo ayaa ka soo daatay wayna kacday way carartay waliba si wax waalan ay u carartay Cabdiraxmaan ayaa kor ka arkay wuuna ka daba cararay waa uu gaaray wuuna weydiiyay waxa ku dhacay balse iyada wax jawaab ah maysan siinin asagana kama uusan daba harin Zainab naxdin tahaydo xitaa gaari way raaci weyday oo carar ay hospitaalka ku tagtay Cabdiraxmaan si la mid ah waa uu ka daba cararay la soco qaybta xigta baahan tahay inaad page-kiina like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu